barakaatu kusoo dhawaada cawke channel fadlan haddaad channelka ku cusubtahay subscribe saar si aad ula socotid barnaamijyada aan soo gudbino balse waxaan ka hadli doonaa nin dadaalkiisa ku mutaystay ABaalmarin. nin ku sugan dalka Mareykanka ayaa maalintiisii koowaad ee shaqada u lugayay 12 kiiloomitir maadaama uuna lahayn wax gaadhiya isla markaana uuna awoodin inuu iska bixiyo nooliga gaadiidka dadweynaha. ninkan lagu magacaabo Walter Carr ayaa habeenkii oo dhan soo lugayay si uu subaxii xigay uga gaadho xilliga shaqada oo ku tiilay gobolka Alabama ee dalka Mareykanka. intii wadada soo socday ayaa waxa dhexda uu kula kulmay nin boolis ah kaas oo quraacsiiyay Mr. Walter ayaa waxa uu shaqo ka helay shirkad albaabada u rarta dadka waxaana dhacday in ninkii lahaa shirkadaas uu baabuur cusub siiyay. markii uu ogaaday waxa uu sameeyay ninkan reerkii ugu horeeyay ee uu shaqada u qabanayay ee uu alaabta u rarayay ayaa qisadii soo dhigay Facebook taasna waxa ay keentay in ay sheekadii ku sii faafto dadka kale. haweeneydii lahayd guriga ayaa Walter u soo bandhigtay inuu xogaa nasto balse waa uu ka diiday shaqadii ayuuna hore ka galay. Mrs. Lamy ayaa sheegtay inuu uga sheekeeyay in markii uu yaraa ay ka soo guureen gurigooda New Orleans Louisiana kadib duufaantii Katrina ay burburisay gurigooda keentayna inay u soo guuraan magaalada Houston Texas. Luke Marklin oo ah mulkiilaha shirkadda Bellhomes ayaa sheegay inuu la xanuunsanayo dhibaatada shaqaalihiisa cusub sidaas darteed u go'aansaday inuu baabuur siiyo. Luke ayaa ka yimid gobol kale si uu ula kulmo shaqaalihiisa cusub oo uu la dhacay qisadiisa. dad xilqaama ayaa khadka internetka bog ka furan ku ururiyay lacag $8,000 si uu gaadho helo ka hor intaan la xalin arrinka. waxaa ninkan tusaale loogu soo qaatay daacadnimada iyo xagga shaqada iyo dadaalka dheeraadka uu sameeyay. Mr. Walter ayaa bisha December ee sanadkan qorshaysan tahay inuu ka qalin jabiyo jaamacadda isagoo baranaya arrimaha caafimaadka balse sidaas oo ay tahay waxa uu doonayaa inuu shaqo galo xilliyada qaar. waxa ay rajadiisu tahay inuu ku biiro ciidamada Marines ee dalka Mareykanka. waxa uu yiri waxaan rabaa inaan dadka tuso in wax kasta oo ay kugu qaadataba laga gudbi karo. waxaan suurtagal ahayna ma jiraan ayuu yiri Walter. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.